kadib burburkii Soomaaliya waxaa meesha ka baxay dhammaan adeegyadii dadweynaha iyo ganacsiga sida bunuugtii iyo shirkadihii bixinayay adeegyada. haddaba si loo daboolo baahidaas ganacsato Soomaaliyeed ayaa u istaagay howshaas. shirkadaha ku dadaalay inay maalgashadaan dalka Soomaaliya isla markaana bixinayay adeegyada aasaasiga ah iyo kaabayaasha dhaqaalaha waxaa kamid ah shirkadda Hormuud Telecom oo la aasaasay 2002. dagaal hadduu dhaco waa la farxaday dadkii kala baahay kala dhumay waxbana isgaarsiin karin caa'ilooyinkii ama faamiliyyaasha ay kala dhumeen baahidaas jirto ayaa la qiimeeyay waxaana loo qaatay go'aan lagu qaatay in shirkadda la yagleelo si loogu adeego shacabka Soomaaliyeed waayo ninba maalintuu joogo ayuu ka fikiraa wixii uu qaban karo. marka maalinta anaga wax qabadkeena aan ka gali karno wuxuu ahay inaan dadweynaha Soomaaliyeed aan u adeegno adduunkan aan ku xirno. 20 sano oo maalgashi dhan walba leh kadib shirkadda Hormuud Telecom waxay door lixaad leh ka qaadatay dib u soo kabashada dalka iyo diyaarinta bi'ad ganacsi oo lagu shaqeysan karo. higsiga shirkadda Hormuud Telecom ayaa ah inay horseed u noqoto maalgashi dalkeena iyo dib u dhiska dhaqaalaha waddanka iyada oo u mareysa istiraatiijiyad ku dhisan inay shirkaddu maalgashato kaabayaasha ganacsiga dalkana ay ka dhigto meel lagu ganacsan karo. arrintaasi waxay ku dhiirigelisay ganacsato badan oo dalka dibadiisa joogtay inay ku soo dhiiradaan inay dalka dib ugu soo noqdaan. ani Soomaaliya ana weyn la imaaday soo marka go'aansada inaan soo guuro xogaa ugu adkeed Soomaaliya ma u guurtaa meel kale oo Afrika ma u guurtaa marka fiiriyay oo Daarusalaam arkay inkastoo markaas ay cusbeed isla markiiba waa go'aansada inay taa meesha degayo. dhinacyada ay shirkaddu xoogga saartay waxaa kamid ah isgaarsiinta, maaliyadda, dhismaha, tamarta iyo shirkado kale. Hormuud Telecom shirkaddan oo bixisa adeeg kamid ah adeegyada ugu muhiimsan ee isgaarsiinta ayaa dabooshay baahida isgaarsiineed ee dalka iyadoo suurtagelisay in Soomaaliya ay noqoto waddanka ugu raqiisan qaaradda Afrika. sida lagu xusay daraasad hay'adda cable.co.uk ee laga leeyahay dalka Ingiriiska sanadkii 2020 isgaarsiintu waa laf-dhabarka tiknoolajiyadda ay ku dhisan tahay dhammaan kaabayaasha dhaqaalaha ee casriga ah. isgaarsiinta kaabayaasha dhaqaalaha ay ka mid tahay taasoo macnaha suura gelinaysa in macnaha waddanka laga sameeyo shaqo abuur badan iyo hawlo badan oo markaas kambaniyadii ay isku xirmaan oo ay muxuu ahaa xiriir fiican ay sameystaan. waxyaabaha oo markaan ka hadlaynaa si dad dhaqaaliyahan ah oo aad Hormuud u xasuusan waxa kamid ah payment systemka dalka si u fududeysay saan la socotiin shilinka Soomaaliga oo baaba'ay saameyn weyn ay ku lahayd nolosha dadka caadiga ah iyo ganacsiga haddii lagu sii tiirsanaa lahaay fiat currency-ga ama lacagta warqadda ah ee dowladda Soomaaliya ay soo saartay wixii ka horreeyay 1990 marka payment systemkan oo lagu kalsoon yahay oo dadku dhan ay isticmaalaan dalka EFC IZAD iyo loo yaqaano waxa waaye waa wax badan ay ka qabatay financial systemka dalka sidoo kale waxay qayb weyn ka ahayd shirkadda Hormuud in ganacsiyada yararka ay u fududaadaan payment system si loo abuuro iyo accounts khaas ah ee lacagooda ay ku shubtaan. samaynta bankiga Salaam Somali Banki si loo taageero ganacsiga qaybihiisa kala duwan helidda deymo yasiran si ganacsatadu u sii horumariyaan ganacsigooda. tusaale ahaan 10kii sano ee ugu dambeeyay wuxuu Salaam Somali Banki lacag kor u dhaafaysa $100 milyan ku maalgeliyay ganacsi kor u dhaafaya 50,000 oo isugu jira jaamacado, isbitaallo, suuqyo ganacsi, shirkadaha wax soo saarka beeraha iyo shirkadaha bixiya adeegyada kala duwan. faa'iiday shirkadda waxaa kamid ah maalgashi iyo constructions badan ay ka qabtaan dalka mashaariic waaweyn oo dhiirigelinaya dadka kale xataa inay dalka imaadaan iyo shirkado kale cusub inay maalgashtaan sida mashaariicda xaafadaha waaweyn ee la dhisay ee Muqdisho laga dhisay qayb ka ahayd portfolio Hormuud. marka anaga as economist markaan fiirino shirkadda Hormuud waxaa noo muuqanaya inay tahay yani contributionist weyn oo dhanka dhaqaalaha Soomaaliya. samaynta xawaalada Taaj oo si fudud oo degdeg ah dadka danyarta ah iyo kuwa da'da ahba ay uga heli karaan lacagaha dibadda looga soo diro. saameynta ay yeelatay xawaalada Taaj waxaa kamid ah inay saddex laabantay lacagtii xawaalada ahayd ee Soomaaliya soo gali jirtay intii u dhaxaysay 2010 ilaa 2020. hay'adda lacagta adduunka ee loo yaqaan IMF
waxay ku qiyaastay lacagaha Soomaaliya ka soo gala xawaaladda 2 bilyan oo dollarka Mareykanka. sidoo kale bangiga adduunka wuxuu xusay in 30% ay korortay xawaaladda intii u dhaxaysay 2020 ilaa 2022. Sameynta shirkadda dhismaha ee Bruge oo kaalin muhiim ah ka ciyaartay dib u dhiska dalka sida laamiyada, cisbitaalada, iskuulada iyo sameynta xaafado casri ah oo leh dhammaan adeegyada ay u baahan yihiin shacabka ku nool dalka. sidoo kale shirkadda Hormuud Telecom waxay horkacday dadaaladii lagu horumarinayay helidda tamar ama koronto tayo leh oo raqiis ah. sidaa daraadeed ayaa waxa ay ka qayb qaadatay sameynta shirkadda Beko ee dhalisa dabka ama korontada. Beko ka hor halkii kilowatt saacadiiba wuxuu ahaa $1.30. haddana waxaa la gaarsiiyey ilaa 30 senti meelaha qaar. dhammaan arrimahaas waxay horseedeen in shirkaddu abuurto shaqo abuur gaaraya 35,000 oo shaqaale ah ila dhaqaalo oo ganacsatada Soomaaliyeed ay ku maalgashan karaan raasamaalkooda dalka iyada oo Hormuud Telecom kaliya ay leedahay in ka badan 12,000 saamile oo ka kala yimid dhammaan deegaanada dalka iyo qurbo joogta. abuuridda bii'ad lagu ganacsan karo oo ay ku samaysmi karaan ganacsiyo yaryar. kobcinta ganacsiga ku dhisan tiknoolajiyadda casriga ah sida ay shirkaddu uga dhigtay Soomaaliya wadanka ugu raqiisan internetka Afrika iyo wadanka toddobaad ee dunida ugu raqiisan. iyo saameynta adeega EVC Plus oo ah adeeg si bilaash ah ganacsatada dhexdooda iyo macaamiishooduba ay isugu diri karaan lacagaha adeega EVC Plus. markii horeeytii sida oo EVC ma jarjarna cash ahaan yala qaaday jari cashka dhibsha la tamay haytay beesada cashka markii for example ad $100 amal fadaas geek markaa sarafta anteed ilaalido la koofade qofkii bakaara joogo waxa laadam sheegaas raba horo kaaga soo sawiraya horo uga diraysa wax oo maaragtay waqti ka dhumaa malaha mid kale safety lacagta ku jirto lacagta markii doolarta oo gacanta ku dimaanta dhan waa walwalaysa laakiin markii telefoonka account salaam bangi oo kale kuugu jirto $10,000 $20,000 comfortable tahay ma walwalaysid. sidoo kale adeega EVC Plus wuxuu macaamiisha u sahlay inay ka ganacsan karaan dalka oo dhan iyaga oo isticmaalaya aaladda ganacsiga internetka ee e-commerce. daraasad ay sameysay jaamacadda Simad ayaa lagu ogaaday in adeega EVC Plus ka qayb qaatay kor u kaca wax soo saarka dhaqaalaha dalka gross domestic product. daraasadaasi waxay xustay in 3 dhinac uu adeega EVC Plus ka taageeray dhaqaalaha dalka sida kor u qaaday wax iibsiga qoysaska, yareynta qarashka ku baxa kala iibsiga iyo yareynta faqriga isagoo oo suuro geliyay in dad badan lacagaha loogu soo diro adeega EVC Plus. shirkaddu waxay ku bar walba ku dadaashaa inay nadaaminteeda xagga dhaqaalaha waxa la yiraahdo financial inclusion inay maartay ay nadaamiso. adeega mobile money-ga oo ka hana qaaday dalka 10 sano ka hor wuxuu u fududeeyay adeeg maaliyadeed dadka badan 7 ilaa 8 milyan oo qof guud ahaan dalka, taasoo u dhiganta in ka badan 50% dadweynaha ku nool dalka Soomaaliya. dadaaladaasi isugu jira dib u dhiska kaabayaasha ganacsiga, diyaarinta bii'ad lagu ganacsan karo iyo diyaarinta bunuug iyo shirkado bixiya adeegyo maaliyadeed oo tayo sare leh isla markaana raqiis ah waxay horseeday in dalka ay ka hana qaadaan ganacsiyo badan sida bunuug, shirkado isgaarsiin, kuwa xawaalad, kuwa tamarta iyo adeegyada dadweynaha bixiya iyo ganacsiyo yaryar. 20 sano kadib dhaqaalaha Soomaaliya oo lagu tilmaamo mid soo koraya ayaa wuxuu bangiga adduunka ku qiyaasay in wax ka badan 90% uu dhaqaalaha Soomaaliya yahay mid gaar loo leeyahay isla markaana in ka badan 76% ee dhammaan shaqooyinka ay ka yimaadaan ganacsiga. 20kii sano ee la soo dhaafay shirkadda Hormuud Telecom waxay ku maalgelisay Soomaaliya in ka badan 2.5 bilyan oo dollar. maalgashigaas wuxuu ku soo kordhiyay dhaqaalaha dalka balaayiin dollar. Hormuud Telecom waxay sameysay inay Hormuud sameysay kaliya kuma ekaanine bangigay sameysay, shirkadda Bruge ay sameysay oo dhismiga wadanka iyo bilicda wadanka wada, magaaleyn wada sida Dar es Salaam. waxay sameysay Beko oo wadanka koronto u baahan yahay awal meel walba guri walba generator baa ka taagnaa mid walbana waxaa ka shaqeeya muxuu ahay 10,000 oo shaqaale ayaa ka shaqeeya. marka runtii waxaasoo dhan waxaa looga dan lahay kaabayaasha dhaqaalaha in la kobciyo. kaabayaasha dhaqaalaha si lagu kobciyana waa in shaqo la'aanta lala diriraa.
oo guri walba laga helaa ugu yaraan cid dhaqaaqda oo u shaqaysa in laga helo weeye sidaasaa maaragtay loo aasaasay shirkadahaas Hormuud Telecom way sii wadi doontaa horumarinta dhaqaalaha dalka iyadoo oo xoog saari doonta taageeridda ganacsiga qaybihiisa kala duwan si ganacsigaasi uu ugu sii abuuro fursado shaqo dhalinyarada